السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشين قروح بدن لقلب وناكسن جمعة وناكسن halkaas si toos ah uga daawanaysaan waa barta aynu ku leenahay Facebook ee Cali Somali Page maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 25ka bisha June oo maalinimo Jimco ay tahay waxaynu ku sugannahay beerta Banaadir ee magaalada Muqdisho sida idin muuqataba oo meel walba aad ka wada arki kartaan halkan waxa isku wada bedeshay meel munaasabad lagu dabaaldagayo kaleeto ayadoo ay wali ay ka dhiman tahay munaasabada muddo saacada ah runtii waxaan halkan ka cadeyn karnaa ama idin cadeyn kartaba dhow walba markii aad eegtaan sida maanta meeshan u buuxdo oo lagu dabaaldegayo sida Soomaalida ay ugu hiloobeen ama ay ugu baahi qabaan in ay xurriyad helaan runtii waxa uu moodaaba maanta markii aad aragtid beerta Banaadir oo kaleeto iyo waliba baraha bulshada markii aad ka daawato iyo waliba meelaha kale bulshada isugu yimaadaan in maanta ay bilow tahay oo lool naqday sanadii 1960kii xilligii Soomaaliya ay xurnimada ka qaadatay gumeystigii Ingiriiska iyo gumeystigii Talyaaniga ee gumeysanayay gobolada waqooyi iyo koonfur runtii maanta bulshada Soomaaliyeed waxa laga dheehan karaa wajiyadooda farxad aad u badan runtii waxa sidoo kale xusad weyn mudan oo aan marnaba la ilaawi doonin calankan meel walba idin kaga muuqda Allah u naxariistay halyeeygi sameeyay Maxamed Cawaali Liibaan runtii indhahaygu waxay qabanayaan dadyo fara badan oo maanta u dabaaldegay ayadoo munaasabadii wali aan la gaarin munaasabada aad u maasantiin daawadayaasheena quruxda badan inta xurriyada jecel iyo inta Soomaali jecelba waan isla wada socon doonaa waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo kala duwan iyo waliba farxadda maanta ay u dabaaldegayaan bulshooyinka Soomaaliyeed maadaama ay tahay 26 June maalintii xurriyada ay ka qaadatay Soomaaliya gobolada waqooyi ay ka qaateen gumeystigii Ingiriiska kowda Luuliyana ay tahay Israaciil labada gobol waa maasantiin daawadayaasheena quruxda badan leh nala socda inta page ku cusubna waxaan leenahay no follow grey like iyo sida aad u heshaan muuqaalo qurux badan insha Allah wali waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenii dabaaldega munaasabada 26 June iyo waliba dareenka bulshada halka naga daawanaysaan waa Cali Somali Page ku soo dhawow magacaaga iyo waliba halka aad ka soo damaashaa tagtay iyo dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi Maxamuud Maxamed ku magac dheer Engineer Afrax waxaan ka soo damaashaa tagay degmada Kaaraan waxaan joogaa beerta Banaadir aad baan ugu faraxsanahay page-ka Cali Somali in maanta la iga wareysto Engineer Afrax waxaad u soo damaashaa tagtay dabaaldega munaasabada 26 June waxaan ku sugan tahay beerta Banaadir 26 June waa maalintii Soomaaliya iyo waliba gobolada waqooyi ay ka qaateen gumeystigii Ingiriiska maxaa ku yiraahdaa Ingiriiska gobolada waqooyi munaasabada calansaarkana waxa ka dhiman saacado fara badan halkan aad ku muuqatana run ahaantii waxa indhaha ugu qabanayaan gees ilaa ka gees waa calanka Soomaaliya oo run ahaantii bulshada Soomaaliyeed maanta dareenkooda aan la soo koobi karin bal adigoo kala qayb qaadanaya dareenkaaga cabiraya dareen ilaa inteeg ayaa dareemaysaa maxaase ugu hambaliyeyn lahayd bulshada Soomaaliyeed wallahi dareenkaygu ma la soo koobi karo sababtoo ah macnaha maanta kale waxay iga dhigan tahay ayadoo cunugii koowaad oo ii dhasho kale macnaha wiilkii koowaad oo ii dhasho kale saan u farxi lahayo kale aan u farxiyaa maanta kalena ilama sinno maalmaha kale waa maalintii aan xurriyada qaadanay oo aan noqono dal xor ah Soomaaliya ha noolaato Engineer Afrax aad oo maasan tahay waxaan ku leenahay hambaliyo daawadayaasheena quruxda badan wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii dareenka dadweynaha iyo munaasabada 26 June waxaad arkaysaa calanka Soomaaliya oo runtii ka dulbabanaya faras dushiisa wali waxaynu ku guda jirnaa inaan weydiino bulshada Soomaaliyeed dareenkooda fadlan ku soo dhawow magacaaga iyo waliba dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim markoo aad magacaygu waa Samatar Maxamed Saalax waxa kamid ah bulshada maanta iskugu timid beerta Banaadir oo dareenkooda ku qaadanaya runtii 26 June oo ah maalin ku weyn Soomaalida oo dhan waxaan dareemayaa runtii wax ay dareemayso dadka dhan oo meesha isku yimid inkastoo runtii aad u waxmaayo calankii Soomaaliya aan ku soo labisan haddana waxaan dareemayaa farxaddaas iyo reereyntaas dadkaas ay dareemayaan aad iyo aad buu mahadsan yahay TV-gan page-kan oo daawadayaasha iga daawanayaan waxaan ku goorinayaa inay ka qayb qaataan maalmaha maanta iyo berrito oo ah 26 June loo dabaaldegayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad ma san tahay wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii run ahaantii halkan waa beerta Banaadir ee magaalada Muqdisho run ahaantii dhalinyarada ku sugan ama dadweynaha ku sugan dareenkooda lama soo koobi karo oo waxa ay qof walba u dabaaldegaysaa maalinta xurriyada wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii dareenka dadweynaha iyo waliba u dabaaldega munaasabada 26 June fadlan ku soo dhawow page-ka magacaaga iyo waliba dareenkaaga maadaama aad u labisan tahay astaanta calanka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirasaaq Cabdullaahi Ibraahim dareenkayga lama soo koobi karo aad baan ugu faraxsanahay maanta 26 June waa soo dhaweynaa alxamdulillah waa
ummadda Soomaaliyeed qiimo gaar ah u leh gaar ahaan ummadda Soomaalida oo dhan waa maalin ku xusan astaantooda waxaan leenahay Ilaahay guul iyo gobonimo ha inagu gaarsiiyo sanadkiisa sanadkana barwaaqo iyo baraaro Ilaahay ha inagu simo maalin khayr qabta Ilaahay ha inooga dhigo dabaaldeg ciid wanaagsan ha inooga dhigo aad ma san tahay wali run ahaantii waxaynu ku guda jirnaa dabaaldega ay waliba damaashaadka bulshada Soomaaliyeed maadaama ay noqdeen bulsho xur ah 26 Juun waa maalin ku astaysan taariikhda Soomaaliyeed oo 26 Juun waxa midoobay waxa xurriyadda qaatay goboladii waqooyi ee dalka ee ka qaatay gumeystii Ingiriiska kooda luuliyana waxa gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay ka qaateen xurnimada gumeysi jira markaas ee Talyaaniga kooda luuliyana waxa sida ay ku noqotay Israaciil labada gobol oo halkaas ay ka dhalatay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo una ka dhashay calankan quruxda badan ee maanta meel walba oo kamid ah Soomaaliya ku xardhan wali waxaanu ku guda jirnaa muuqaalkeenii aynu ugu talagalnay dareenka dadweynaha iyo dabaaldega munaasabadda 26 Juun sida idin muuqata halkan waxa ku xardhan 26 Juun oo ah maalinta xurriyadda ay ugu talagaleen halkan waa beerta Banaadir 26 Juun waxa ku xiga dhammaan calaamada maamul goboleedyada kala duwan ee Soomaaliya 26 Juun waxa ku xiga kooda luuliyo waan socon doonaa ilaa meesha ugu dambeysay aan ka tagno halkan 26 Juun waxa ku xigi doona kooda luuliyo